السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورالله الصومالي halkaa baa ka salaamaya insha Allah taala channelkan wax kobci cilmigaaga wax ka baro cilmigaaga ka baro kobci cilmigaaga channelkan ilaa channelka ugu macdar insha Allah taala maktabada waxa furtay oo macnaha ku magac dar kobci cilmigaaga insha Allah marka waxaan doonayaa si duruusa inaad ku noqoto sheekh sidee ku noqon kartaa ujeedku wax kala maahanba inaad si sheekh fudud ku noqoto la doonayaa ma doonaysaa inaad sheekh noqoto sabab waa doonaysaa saamilaniyo insha Allah taala cilmiga inaad hesho oo ka baxdid maaragtay sheekhow mathalooyin noo sheeg sheekhow mathalada noo sheeg inaad ka baxdaa rabaa oo noqoto Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo ku yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun weydiisto su'aalo weydiista ahla dhikri waa culimada marka dadku waxa rabaa inay weydiistiin waa sax laakiin waxa rabaa culimadaas mathalooyinka ugu badan la fahmi waa inay weydiidaan tusaale halkaan ay ku soo gudbinayna insha Allah taala ka bogta marka cilmigan waxa cilmigan aan u soo gudbin wax kala maahan waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku dhacday badana salaadooda waa tukadeen qaar badana waa soo celceliyeen sabab waxay soo celceliyeen cilmi laan awgeed salaad cilmi laan lagu tukadana ma la aqbalo sababtoo cilmi salaad wax baanta cilmi jarada faraheedu waa salaada faraheedu waa dahaaraan salaad faraheedu waa iska mes qabtaan marka waxa la doonayaa insha Allah taala halkan ka bogo salaada wax ku saxa oo ku toosiya halkan ka hel insha Allah taala iyo waliba xadiisul qudsiga aayaadka xadiista kulli qisooyinka dhacaya halkan ka hel oo waliba si fudud ku noqon doonto insha Allah taala laakiin ma aha inaan ka badinayo ma in ka badinayno waxaan in fududina laakiin hadda in ka badina xataa waxaan adigu laba xadiis saddex xadiis wixii xadiis qudsi noqdo wax walba noqdo halkan ay ka rido insha Allah taala laakiin ujeedku ma ahan macna inaan ka badino dad badan waxa la yiri way diideen in kitaabay bartaan sababtoo ah waxay u baradiideen cilmigu wuxuu adag yahay waa kulayl in loo sabraa rabaa cilmigu marka hore waa kulayl laakiin marka dambe macaananaya dad badan dhaxbarta kaga tageen in si wad wataan laakiin insha Allah halkaan ku soo gudbin adoo gurigaaga joogaad ka baran kartaa mobilkaaga laakiin channelkan ku xirno subscribe saar like tan saar saaxiib ma sha Allah aad iyo aad ba u maasantahay waxaan doonaynaa insha Allah taala halkaan ku soo gudbino wax kale lagu dhalin waxaan u dhacday ma ogtihiin walaalayaal Soomaaliya inay salahayn ma ogtahay waxa hadda kor dhacday in oo wadamada jooga la weydiiyo su'aalooyin waxa la yiri Soomaaliya kaniisad male nin sheekha yiri macna oo Soomaaliya dhaha sidee ku dhici kartaa Soomaaliya kaniisad waa leedahay camal laakiin hadda ma waa bari dhaxadu 2015 iyo 4 meelaas ahayn marka wuxuu yiri ma dhici karto Soomaaliya ma dhici karto kaniisad laan siiyo wallahi waa ku dhartay kaniisad ma lahan markaas la yaab maxuu la yaabaa markaas la sidee wax jiraan markaas la warmo dhici kartaa li wal ma sha Allah islaam toosanatihiin saali hatta wali qof kaal ah kuma jiro munaafiqiin laakiin ka buuxda munaafiqana lama saarin daahirka bis ala daahirka bis wax jisadka muuqda inuu macna islaamka qaataa raba laakiin gudaha marka waxa la doonayaa mataqaana gudaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala askale oo munaafiqiinta kala dareema laakiin adiga waxa laga doonayaa bis inaad daahirka ilaalido qofka daahirka uu qaato hayo waa sax marka taasaan doonaynaa insha Allah taala cilmiga ku soo gudbino marka Soomaaliya ogaada inaan horumarsanay laakiin waxaan ugu jirta bis waasi iyo maart inaan horumarsanayn cilmiga barta Imaam Shaafici madhabkeena weynaa wuxuu yiri rahimahullah Allah naxariistay wuxuu yiri warhooy barta cilmiga intaadna noqon madax wayada madax noqotay mar cilmiga barameydin waa sax hadda ma sha Allah madaxda xamuudin wax kale telefoon la qaatay madax lagu noqdaa sabab macnaha waa laga waasaa yani inta yaryarta maartay wax waasiyo ku fulmayaan laakiin intaad maartay computer school internet waxa hadda ku jirtid madax ka badugna marka sadarteed waa mashquul kalaam taabto wax madax u dhig macamal aan taabtay wabillahi tawfiiq laakiin waxa soo dhan waxa ku baran kartaa gurigaaga cilmigaaga si fudud ku dhaqan hadaan ku ka waran salaadahaagii dib u soo celi noqon doonaan waxaan leeyahay arrinkaas aad ku gaadaya laakiin waxaan kala jeedaa sidii inaad ku wada ron ma ogtahay intaad nooshahay bis inay fursad u weyn tahay marada dhimatay laakiin khalaas oo markaad ugu dambeeyay musiibada ugu weyn baa musiibada ugu weyn waxay bataan taqaana oo ku soo taabata dhimashada ma ogtahay marka in dhimashadu xanuun ku kalif karto aad waxba sii qaban karin laakiin intaad nooshahay fursad baa haysataa Ilaahay subhanahu wa ta'ala noloshan wuxuu fiirinayaa intii kugu jirto bis soo laaban kartaa الله ورسول الله تعالى سبحانه وتعالى معناها دي علم الأنية يسوع وحول إنه كسي علنا الروا مركا هالكان وحين كوسي بدنا حديث فربضن وركان إن كوسي دائرة معي وحول يرجعنا إن شاء الله هالكان كبجو أو صفوت كنا قشيخ علم له تصالح ودت كمارة سؤالين كبدنا وديني شيخ وماشان شيخ شيخ وماشان يدبتي هالكان وفهم واي أفصل مالك وبرو عربي هذا كوش أفصل مالك فهم ويدان أنا كوش جينا مركا سادرت halkan bay ku soo gudbinayaan ahadiis ugu far badan meeno dabcan waxaan ka bilaabaynaa mawduuc maanta wuxuu ku saabsan mawduuc far badan waa ahadiis mar soo qaadana mar dahara soo qaadana mar wax aayad ka soo qaadanayna kulli
marka halkan waxaan ka bilaabayna hadeer salaadii insha allahu tacaala ma ogtahay marka la tukanayo qubays iyo weyso aal rabaa ma ogtahay qubayska marka la leeyahay iyo weysada marka la leeyahay ma ogtahay waa kala duwan yahay rafaca alxadas alakbar mid weyn iyo alasqar ee keliya rafaca alxadas alakbar rafaca alxadas alasqar alasqarka waxaa iska lexa baalkii weysada laakiin alakbarkana waxaa iska le qubayska ma ogolayna maantay waxaa mawduucana kusoo qaadanayna maantay yani inta ka horeydaba ma ogtahay markii la yiraahdo farjiga waxaa ka yimaada yani marka ka yimaadaan minida markii la yiraahdo waa badan yihiin afar ka timaada laakiin culimada qaar ay 5 baa ka timaada laakiin afar alla xaqiiqsiyan sidoo badan tahay afarta wax kala ma waxa weeye waa kaadida ugu horeyda waxa ku xigta kale minida ana shahwada ka u taqaaniba ku xigta waxa ku xigta kale wax la yiraahdo madiga ku xiga madigaas wuxuu yimaada waa madi wax macna yimaada waa xilliga aad iska dareentay maartay yani qalbigaagu inuu raaco qof ama xaaska la joog ama wax balaayo fiisdar adaa yaqaana yani intaba waa ku iman karaa yani dareen buu ku xiraya madigu markuu yani waxa tahay dareenkaaga kaco oo yani aad dareentid in kacsan tahay adiga si kala tahay yani markuu hadhow haddii aad ragtahay baalkaagu soo jilco markuu soo jilco kadib waxaa imaanaya madigaas meeshuu kaa taabtay waa najaas ogow taas waa lagu cadaaba hadda ku tukatid wax salaadan laga aqbalaa ma lahan wadoo yiri inta kaadshay aan soo tagay waa weysaystay waan tukaday adaan ku weydiinaa ma laga aqbalaa salaad waa maya su-aashu sidaasoo kale ka dhigantaa ka joog hadeer ka joog waan ka celinaynaa ka jooga marka waxaa laga rabaa insha allahu tacaala in aad marka hore iska daahirid hadday kaa timaado way imaan kartaa badanaa waxay ku timaadaana waa sheegi doonaa waxay ku timaadaa badanaa dhalinyarada sababtaa markii shukaansiga badanaa la sameynayo shukaansiga badanaa waxaa jirta waa wiilashu waxay aadaan gabdhaha markay u tagaan lala sheekaysto la qalweeyo xataa ragga qaar ilaahay dareenkooda fudud ka dhiga ma ogtahay way imaanayaan qalbigooda kacaya mabas ku socoto sheekaduba laakiin wax kale ku mashquulsan yihiin saas ha ahaatee hadhow ma ogtahay farjiga waxaa ka imaan doona waa bahal la yiraahdo madigaas waa najaas meeshu kaa taabto waa midda labaad ma ogtahay kaadi iyo mani midda shahwada caadiga kaadida iyo shahwada iyo manida shahwadu waa daahir iyadu laakiin waxay daahir ku noqon kartaa waa marka hore waa inuu meeshu daahiraad tusaale qalbiga hadduu samar hore kicin oo wax badan sii nagaadin haddaa xaasla tahay waa inaad marka hore yani haddii aad jeceshahay sida kale sariirta baashaalkeeda aad jeceshahay waa inaad aad boogsiidaa haddii ka timaado kadibna waa najaasooyda qof kastaa og in dadda kusii daahidid waa kaasi waxay imaanaysa baasha ayadaada maahayda gadaalina ka imaanaysaa marka saa darteed najaasi ku tah waa lagu sheegay hadda lagu sheegay dad hor ogeyn ka baro halkan xadiista iyo aayaadka sheegaya waa bari kartaa axkaamta fiqiga waa kitaabada culimadu una aqrisan marina soo gaada adduunkuba dib waxaan iska sheegnaa ma waxaan kutub ka soo qaban weeye marka walaalayaal waxaan kaga digaa mataqaanaa cadaab oo lagu mutaystaa waliba waxaa la yidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis soo qaatay wuxuu yidhi laba qabri oo soo mara labadaas qabri wuxuu yidhi labadan qabri waa la cadaabayaa wax kale lagu cadaabayee mid kaadida fiilbar waa kaadida ayuu iska halay jira allahu akbar meeshaas waa dareemi kartaa marka meesha kaadida marka in la iska cadaab ah ku mutaysto waa qalad waxaa la doonayaa marka ka joog waa kaa celinaynaa madigu waa la mid kaadida kaa baxsata iska qabo haye marka qubayskana ka hadli doontaan laakiin casharo kale uga hadlaynaa laakiin halkan kala soco marka xagaa marsiinaya mataqan wax marsiinayay waxaa marsiinaynay waa soo sheegnay kaadida iyo shahwada iyo baash la yiraahdo madiga midka afraad muxuu yahay waa wadi asagu kaas wuxuu yimaadaa bacdal wuxuu yimaadaa markii maarta kaadida timaado kadib gaalka yimaadaa laakiin waa fudud waa ka sahlaya madigu ka sahlaya marka kaas kaadida markii waa la dhaqi kartaa caadi wey marka saas iska daari kartaa la dagaala intaas aan kaga digaynaa la dagaala salaadu ma ogtahay inuu miciisa tahay waa nuur haddaad tukata ka warar adigoo madi qaba ama naga la soo sheekaysta ama gabar la soo sheegtay gabar ay wiil la soo sheekaysay haddaad dareen fududa waa laga yaabaa in kugu dhacdo saas laakiin ka digtoonow joog waan ka celinayna ilaa hadda waxaan doonaynaa insha allahu tacaala waxaan casharo kale inaan soo gelino insha allahu tacaala halkan ka xirnaada channelkan subscribe iyo like ta saara walaalayaal waan idin jecelnahay walaalo Soomaaliyaanahay waxaan doonaynaa wallahi waan nahay ma ogtahay in hadda nabiga sallallahu alayhi wasallam nin uu riyooday ninkaas oo jooga masjidka uu yaabay nabigu waa salaam wuxuu yiri hayga baqin waa isku sheegay nabigu ma ogtahay markaasuu yiri haa rasuulka ilaahay waa salaameen sidaa darteed wuxuu yiri haddeer sanadkii yacni lasoo dhaafayay waxaa dhintay intaasoo kun oo dadaa dhimatay fiilbal waa 70 dhowr kun dad gaaraa dhintaa layiri intaas weliba toobaddu ma heleelin uu yiri allahu akbar walillahi alxamd war toobadda ma heleelin dad la leeyahay xamda
الله أكبر. اللهم إني أسألك توبة نصوحا كلمة لا إله إلا قبل الموت. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. إله توبة نوناتي، إله توبة نوناتي، إله توبة نصوح نقدو، إله توبة نصوح نقدو وكبر يا رب العالمين. إله ذلك أنا ورق قدم بك كلمة لا إله إلا إله قف كسته مسلمة أو wax walba oo shahaadooyinka soo qoray ilaa tawada ku dub. walaalayaal marka waxaan rajeynayaa in halkan waa 10kan 10 daqiiqo macna ku gaarta laakiin iska raal noqda yani wax waa dhiirigelin waxaan doonaynaa insha Allah taala in aan soo galino wax fadfado 5 daqiiqo soconaa sida aad badanaa internetka ka daawataan waxyaabo badan marka halkan kala socda ahadiis iyo aayad wax walba dad badan ma ogaan marka la dagaalan inta saddexaas iskala dagaalan marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa walaalkiin Maxamed Muslimka oo niirajeenaya السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال channel كان سبسكرايب يا لايك تو بديا سان أصاب بدنا علمك إن شاء الله تعالى. ولالك كان سيجارسي فضلا سيجارسي وحلا يابا إنه أنت سكون رقمه بوقتها هدو اسكقب تكريه نجاسدي وحاس إنه أجر كهلا سبتها ضد بدنا باكرا مركب ولا كلا بقيلين كلا بقيلين جارسي إن شاء الله تعالى. هي 10 كلا تنا يندافن.